السلام عليكم رمضان wanaagsan waa maalinkii labaad ee barnaamijka bedel noloshaada shal waxaan ka soo sheekaysanay hordhicin aan ugu soo hadalnay afarta shay ee nafteena saameeya haddii afarta shay aad ogaato inay naftaada saameeyaan aadna bedesho waxaad hor ugu dhaqaaqaysaa inaad isbedel qurux badan samayso bishaan ay noqoto bishii aad isbedel samayn lahayd bishaan ay noqoto bishii aad horumarka samayn lahayd bishaan ay noqoto bishii aad bedeli lahayd wax badan oo aad ku hamin jirtay inaad weligaa bedesho maanta waxaan rabaa inaan ka wada sheekaysano ciwaan muhiim ah oo haddii aan kuu sheego aan rajaynayo inuu ahaa ciwaan aan muddo sugaysay oo ciwaanka ah sidaan u bedelaa nafteyda sida caadiga ah qof walba inuu isbedel sameeyo oo noloshiisa bedelo oo meel fiican gaaro waxa uu jecel yahay maalin walbaana qof walba aadmiya isbedel ayuu sameeyaa haddii aadan adigu nolosha isbedel ku samayn iyada ayaa kugu samayn doonta haddii aadan duruufaha iyo xaaladaha nolosha kugu soo haraysan aadan ka dhex bixin oo aadan ka korin oo aadan ka kobcin iyaga ayaa ku bedeli doona oo duruufo niyajab iyo quus kugu keeni doona marka isbedelku waxa ugu baahantahay waxay tahay inaad ka kobacdo meesha aad maanta joogto si aad u gaarto meesha aad biri rabto sida caadiga meesha aad maanta joogto waxaad ku timid rabitaan iyo isbedel aad u baahatay shalay meesha aad biri rabtana wax ku gaari karto waa rabitaan iyo talaabooyin aad raacdo si aad u gaarto meesha aad biri u baahan tahay faa'iidooyinka isbedelku uu kuu keenayo waxa ugu weyn waxay tahay in aad dareento xasilooni nafeed sababtoo ah markastoo aad tallaabo cusub qaado waa markastoo aad isbedel cusub samaynayso markastoo isbedel cusub aad samaynayso waxaa ku qanacsantahay isbedelkaas aad samaynayso balse waxa ka horeeya waxay tahay qanacsanaantaas inaad u dulqaadato culeysyada isbedelku uu keenayo oo deegaanka iyo saaxiibada iyo dadka kugu hareeraysan kaaga imaanayo isla naftaada mararka qaar kaaga imaanayo culeysyada oo hadallo negativity ah iyo fariimo aan habbooneyn marka si aad naftaada u bedesho waxa u baahan tahay waxay tahay kaliya inaad 5 qaybood oo noloshaada ka mid ah bedesho 5taas qaybood haddii aad bedesho wax walba noloshaada ku hareeraysan oo isbedelaya waxaadna gaaraysaa horumar aad u weyn waxa ugu horeeya waxay tahay had fikirkaaga faracana ayaa waxa uu leeyahay meesha aan maanta joogo waa wixii shalay aan ku fikiraayo meesha aan biri rabana waa waxa maanta ku fikiraayo halka waxa ka dareemaysaa haddii aad fikirkaagu uu yahay wax wanaagsan oo qurux badan oo aad ka shaqaysay wanaag iyo waxtar iyo waxgal aad ka fikirayso waxaad samaynaysaa isbedel weyn meesha aad shalay joogto waad ka soo kobcaysaa waxaad imaanaysaa meel qurux badan meesha aad maanta joogtana waad ka sii kobcaysaa markastoo aad fikirkaagu uu sii qurux badnaado marka waxaa nolosheena hab fikirkeena u saameynaa waxa ugu weyn waxay tahay inaan ka fikirno wax xun oo kaliya noloshaada dhan marka waxay noqonaysaa in ay noqoto nolol ku dhisan fikrad xun aan tallaabo qaadayn marka fikraddaas si aad u bedesho waxa u baahan tahay number 1 horta inaad adiga isdhiirigeliso oo nafsadaada gudaheeda isdhiirigeliso dhiirigelinta laba ah midna waa dibadda midna waa gudaha tan gudaha inaad adiga qaadato horta dhiirigelin gudaha oo aad nafsadaada ka dhaadhiciso inaad leedahay awood aad ku fikiri karto fikirkaas uu yahay nimco ilaahay ku siiyay haddii nimcadaas aadan ka faa'iideysan ay khasaaro tahay balse haddii aad ka faa'iideysato ay tahay wax isbedel weyn aad samaynayso markaad gudaha iska dhiirigeliso mid labaad u baahanayso waxay tahay inaad kana fikirto wax walba wanaagsan aad ka fikirto in bishaan isbedel weyn aad samayn karto caqabadaha kaaga imaanayo ay noocayihiin aadna ka gudbi karto aad ka fikirto in buug aad qori karto in wax walba aad samayn karto u baahan tahay waxaa dadku laba nooc iskugu jiraan kuwana waa sida shinnidoo kale kuwana waa sida taxsiga kale ama tuqsiga taxsiga wax kala ma arko ilaa qof dhan oo qurux badan oo labisan oo carfaaya oo maasha Allah oo wadada maraya wax uu ka raadiyaa uu ka daydayaa uu ka fiiriyaa meel boog oo kaliya oo uu dulfoolo balse shinnidu waxay baadi goobtaa waxyaabaha macmacaanka carafta ee quruxda badan marka waa inaa maanta wixii ka dambeeya noqotaa sida shinnidoo kale ee aadan noqonin sida tuqsiga shinnidu sida macmacaanka quruxda iyo waxaas ay u raadinaysaa nolosha wanaageeda wacnaanteeda iyo quruxdeeda ee aadan u raadin sida tuqsiga meelaha xunxun ee aan wax wanaagsan iyo quruxda iyo waxaas aysan oolin marka number 1 waa inaad bedeshaa fikirkaaga number 2 waa inaad bedeshaa waxaad aaminsan tahay dadka qaar waxay aaminsan yihiin in isbedel ay samaynayaan marka uu guursado markuu gaari cad helo markuu dhaqaale helo marka mid ciddiisa wasiir u noqdo ama isaga uu wax noqdo marka in isbedel samaynayaan balse inta aad aaminsan tahay aragtidaas xun
ama fariintaas xun noloshaada tallaabana hore uma qaadayso balse ugu horreyn waa inaad beddeshaa waxaad aaminsan tahay haddii aad aaminsanayd in gaari iyo gabar iyo dhaqaale iyo wax noocaaya ay isbeddel kuugu imaanayaan waa inaad ka saartaa qaamuuskaaga soo gelisaa in tallaabo walba noloshaada kusoo kordhayso go'aankeed aad adigu leedahay marka waa inaad beddeshaa waxaad aaminsan tahay haddaad aaminsanaan jirtay in noloshu ay tahay wax adag waa inaad aamintaa inay tahay wax qurux badan oo wanaagsan oo ilaahay hadii u siiyay haddaad aaminsanaan jirtay in Soomaaliya gudaheeda ama dalka aad joogto ama gobolka aad joogto aan wax lagu noqon karin waa inaad ka saartaa qaamuuskaaga u sheegtaa gobol walbo aad joogto adiga ka dhigan kara meesha aad ku fikirayso in wax lagu noqon karo sababtoo ah ma jirto wax inta aanan oolin meesha aad joogto aanan oolin ee yaala meesha aad ku fikirayso in wax lagu noqon karo marka waa inaad iska beddeshaa waxaas aad aaminsan tahay aad u beddeshaa wax wanaagsan haddii xumaan ay yihiin haddii wanaag iyo wacnaan yihiinna aad sii kobcisaa si qurux badan u sii kobcisaa waxa saddexaad oo la rabo inaad beddesho waxay tahay waa midda ugu muhiimsan oo wax value ku leh haddii markii hore uu qiimo ku lahaa jiro kubadda cagta meelaha waqtiga lagu lumiyo dadka inaad maxay ahaatay ku mashquusho iyaga wax ka sheegto dadka inaad xamato wax nooca haddii value ku lahaan jireen ka jar noloshaada waa inaad soo gelisaa noloshaada inay value ku yeelato inaad waqtigaaga ka faa'iidaysato inaad shakhsiyadaada horumariso inaad dantaada ka fikirto inaad saaxiibada wanaagga iyo waxtarka iyo horumarka iyo guusha aad ku bogaadiso waa inay value ku yeelataa waa inay value ku yeelataa in hadafkaaga riyadaada jeedkaaga aad ka rumaysaa haddii intaas value ay ku yeelato dhaqaaqaad samaynaysaa iyo horukac noloshaada meesha u baahan tahay waad ka gaaraysaa waxa afraad ee loo baahan inaad beddesho waxay tahay waa mid ugu muhiimsan haddii inta aad soo beddesho aadan tan beddelin way ku saamaynaysaa deegaankaagii saaxiibadaada idmanis kalama jeedo deegaankaaga markaan ku dhaho ka guur deegaanka oo deegaanka la deg laakiinse waxaad ku beddeli kartaa number 1 markaad noqoto shakhsi wanaagsan oo tusaale u noqdo wanaagga deegaankaaga isaga isbeddeli doona balse inta aad tahay shakhsigii hore aad ka walwalayso wax deegaankaaga iman kara way adag tahay in deegaankaagu isbeddelo balse waxa loo baahan yahay inaad beddesho waxay tahay saaxiibadaada haddii aad u aragto inaysan wanaagga iyo isbeddelka iyo horu socodka kugu dhiirigelinaynin u sheeg intaa wixii ka dambeeya inaadan wada socon karin aad u baahan tahay nolol cusub iyo shakhsiyaad cusub aad u baahan tahay dad waxgala aad u baahan tahay dad nolosha horumar iyo wacnaan ka sameeya balse aadan u baahnayn dad niyad-jab quus iyo rajalaan kuu soo hooya adiga waxaa tahay 5 qof saaxiibadaada waxay yihiin 5taas qof haddii ay wanaagsan yihiin adiga waad wanaagsan tahay haddii aad xun tahay adigana waa xun marka waa inaad saaxiibadaada beddeshaa oo ay noqdaan saaxiibadaada dad wanaagsan hadday noqdaan dad wanaagsan isbeddelka u baahan tahay uu soo gaaraya dadka kale deegaanka iyo waxa iyaga isbeddeli doona waxa ugu dambeeya la rabo inaad beddesho waxay tahay go'aamadaadii hore go'aan qaadashada maalin gaar ah si qurux badan oo fiican ugu wada sheekaysan doonaa maanta inta ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijkii waxaan si toos ah u wadaagnay oo nolosheena beddeli kara waxay tahay 5 talaabo waxaan ugu horeeya inaad beddesho fikirkaaga number 2 waxaad aaminsan tahay number 3 wax value ku leh qiimaha ku leh number 4 waxay ahayd inaad deegaankaaga ama saaxiibada beddesho intan ugu dambayso ah go'aan qaadashada haddii 5ta aad beddesho noloshaada waxa kusoo biiraya isbeddel weyn waana wax aniga nolosheeda beddelay heerkan aan maanta joogana gaarsiiyey aan rajaynayo in halkaan ka sii qaadiso isbeddel qof walba oo muhiim ah sanadeen ramadaan mubaarak anigu waa Cabdi Fataax Xasan